kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkii ugu horeeyay ee telefishinka BBC waad ku maasantihiin daawashadiina waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka caalamka ugu waaweyn Soomaalidu way midoobi doonaan wayna ka adkaan doonaan al-shabaab sida waxa yiri ra'iisul wasaaraha cusub ee oo BBC-da u warramay wax kuwii ka horeeyay ay ku fashilmeen ma ku guuleysan doonaan way dhamaatay waqtiga lagu gamban jiray been oo lagu leen jiray ummadooda doorashooyinka Faransiiskana waxa isku soo haray Emmanuel Macron oo siyaasadda ku cusub iyo Marine Le Pen oo ah musharaxa midigta fog iyadoo loo dabaaldegayo hidaha iyo dhaqanka waxaanu booqannay madxafka kaliya ee Soomaaliyeed ee ku yaala caalamka waxa xilka loo magacaabay 2 bilood ka hor isagoo taageero buuxda ka helay baarlamaanka hadda ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu ballan qaadayaa inuu midaynayo Soomaalida isagoo oo wata fariin cad in ay dalkooda dib u hantaan iyagoo la dagaalamaya al-shabaab inkastoo oo wali Muqdisho ay ka dhacaan weerar isqarxina wariyaha BBC-da Cabdirasaaq Catoosh ayuu kula hadlay magaalada Muqdisho waa ra'iisul wasaarihii 12aad ee Soomaaliya ay yeelato 17 sano laakiin wax ma ka qaban karaa mashaakilka qaar badan oo isaga ka horeeyay ay ku guuldareysteen way dhamaatay waqtiga lagu gamban jiray been oo lagu leen jiray ummadeena Soomaaliyeed waxaan isku dayi doonaa in annagoo Soomaali ah oo midaysan hadii Ilaahay yiraahdo aan ciidamadeena dhinac ka istaagno xoreyna shabaab wadankan wuxuu noo sheegay inuu doonayo in al-shabaab uu kaga adkaado 24 bilood isla markaana uu rajaynayo in Soomaaliya aanay u baahnaan doonin ciidanka AMISOM si waxaasoo dhan ummadda Soomaaliyeed ay uga soo gudubto si ummadda Soomaaliyeed ay iyadu isu tiriso waa in anagu isku tashanaa ra'iisul wasaaraha cusub waxa uu sameeyay ballanqaadyo waaweyn laakiin qaar ayaa su'aal ka keenay inuu fulin karo hadallada qaar waxay ku fiican yihiin xilliga doorashada lagu jiro campaign markii lagu jiro oo doorasho lagu jiro ayay waxay ku fiican yihiin inaad tiraahdo waxaan yeelay hatta hadii la yeelay waa wax fiican oo ra'iisul oo qabanayo laakiin shacabkan hadal iyo TV waa ka daaleen wax qabad baa loo baahan yahay waxa uu talada hayaa 2 bilood laakiin fariintiisa sidee shacabku u arkaan hadduu wax qabanayo waa loo joogaa waliba waa la shaqeynaynaa waa rabnaa Soomaaliya inay ku soo noqoto Soomaalidii ay ahaan jirtay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ka rabnaa waa ficil hadalka ma rabno waxaad arkaysaa 2 bil iyo 20 cisho waxay maanta ay hayaan isagii madaxweynaha waxa isbedelay waxyaalo aad iyo aad u fara badan sida hadda nabadyo kale ra'iisul wasaare Kheyre wuxuu ballan qaaday inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa abuuri doono shaqooyin laakiin ahmiyadda ugu weyn uu siinayo ammaanka haddaba si aynu u falanqeyno waxaanu la hadalnay Xasan Cabdi Xayle oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Bidaan ayuu u warramay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sameeyay ballanqaadyo waaweyn horena waa loo sameeyay ballanqaadyadan oo kale ma kula tahay inay suurto galayaan waxay ku xiran tahay ballanqaadyo horta waa yidiil dawladdu ay qabto inay ka dhabaydo marka yidiisha markasta waxa la fiiriyaa tabartaadu intay la eg tahay sida loogu yahay dawladdu si ugu diyaar garaysan tahay mechanismka ay haysato waxyaabaha ay haysato sidii u adeegsan kartaa tan labaad waa arrinta aad loogu baahan yahay waxa si ballanqaadyo u fulaan in bulshada aad looga qayb galiyo macnaha socodka dawladda iyo sidii ay dawladdu wax u rabto ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay annagoo midaysan oo shacabigana midaynay ayaanu al-shabaab ka xoreynaa dalka Soomaaliya ma kula tahay in suurtagal tahay inagoo og awoodda ay shabaab ku leedahay dhul badan oo Soomaaliya haddii uu ku guuleysto madaxweynaha inuu dadku ama dawladdu inay midayso bulshada Soomaaliyeed aan ogsoonahay in kalsooni darro wali ay kala dhex jirto haddii dawladdu ku guuleysato in ay bulshada midaydo una jihaydo in dalka laga xoreeyo al-shabaab waxaan islahay waa talaabo aad u fiican waana laga sugayaa sidii waana arrintii anagu aan qaba inay dawladihii hore ka gaabiyaan haddii taas u dhacdo waraysigaasi ra'iisul wasaaraha oo dheer iyo warar kaleba waxaad ka heli kartaa boggeena bbcsomali.com adiga oo ka galaya moobilkaaga BBC-da ayaa si gaar ah ula kulantay xubno ka tirsan maleeshiyaadka la dagaalamayay dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo in ka badan 400 oo ruux ayaa lagu dilay dagaalkaasi waxaana ku barakacay 1 milyan oo qof xubnaha koox la yaqaano Kamunu Sabo ayaa sheegay in ay hubka u qaateen si ay u helaan dhaqaale wanaagsan iyo dimuqraadiyad balse waxa lagu eedeeyay dil bililoqo iyo waxyeelayn hanti
sixirka ayay aaminsan yihiin inay awooddu ka timaado Kamuin Sapa waxa uu magacoodu ka yimid caaqil dhaqameed dhulkiisa oo ku yaal bartamaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay falaagnimada bilaabeen markii dawladdu dishay hogaamiyahooda bishii August waxaanay aaminsan yihiin in marxaladahan oo kale ay awood ku helayaan dhaqan ahaan ayaan u isticmaalnaa waa ilaahay cidda ogolaata inay qaabkan u shaqeeyaan hadda isoo fiiri xabad ima karto waxay ku dagaalamaan midiyo iyo qoryo otomaatig ah waxa jira walaac ku saabsan xubnaha oo ah kuwa aad u da'yar dawladdu waxay ku eedeynaysaa Kamuin Sapa inay gowracaan askarta dawladda iyo booliiska iyo sidoo kale rayidka way beenayeen eedaasi Kamuin Sapa cidna muu dilin Kamuin Sapa ujeedadiisa kaliya waxa weeyaan in dadkan reer Congo qof walba noloshiisa la hagaajiyo imika kooxda dagaalyahanada ah ee cadaanka xidhan waxay ku soo biireen qorshaha dawladda ee hubka looga dhigayo waxa jira tuulooyin iyo magaalooyin badan oo ku biiray dagaalkan xubno ka tirsan maleeshiyaadka ayaa ku eedeeyay kiniisadda Katoliga ah in ay dawladda taageerayso baadariga goobtaas ayaa cadhaysan wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada dagaalamaysa ay niyad jabsan yihiin loona baahan yahay in la dhageysto dhalinyarada maanta ma guursan karaan maxaa yeelay lacag iyo shaqo ma haystaan hawlo badan kama jiraan Kasai dadka badankoodu waa baayac mushtariin dawladdu waxay sheegtay inaan rabshada loogu marmarsiyoon faqriga waad ogtahay koox kastoo argagixisii waxbay sheegataa waxay dhahdaan waxaasana lagu sameeyey haddii ay yihiin kuwa sheegta dowladda islaamiga hadday yihiin al-shabaab hadday yihiin Boko Haram koox kastoo argagixiso adduunka ka jirtaaba waxay sheegtaan waddankanoo dunida ugu saboolsan ayaa doonaya inuu mustaqbal helo waxaana sidoo kale burburinaya inta yar ay dadku haystaan dagaalka bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Africa General Thomas Waldhauser ayaa sheegay in burcadbadeeda Soomaalida ee kordhay ay ugu wacan tahay qayb ahaan abaarta iyo gaajada ka taagan Soomaaliya tirada weerarada burcadbadeeda ayaa kor u kacay 2011 ilaa 3 milyan oo Soomaali ah ayay cunto la'aan soo wajahday madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kula taliyay Donald Trump in uu ka fogaado wax tallaabo ah oo sii kordhin kara xiisadda gacanka Kuuriya Mr. Xi waxa uu ku booriyay in la dejiyo wada hadal labaad oo telefoonka ay ku yeesheen kooxda ciidanka badda ee wax garaacay Mareykanka ayaa heegan la geliyay hay'adda caafimaadka adduunka ayaa magacawday 3 wadan kuwaasi oo markii ugu horeysay lagu bilaabayo tallaalka malaariyada waxay kala yihiin Ghana, Kenya iyo Malawi 750,000 oo caruur ah ayaa laga talaalayaa sanadka soo socda dadweynaha Faransiisku waxa ay yeelan doonaan madaxweyne cusub waana laba miduun Emmanuel Macron oo ah siyaasiga cusub ee dhalinyarada ah ama haweeneyda Marine Le Pen 47 milyan oo qof ayaa codeeyay Macron ayaa helay 23 halka Le Pen ay ka heshay 21 waxa ka waramaysa Suhayba Maxamed Badqas hal dal hal doorasho iyo laba waji oo kala duwan Faransiiska waxa uu doortay isbedel balse waa mid caynkee ah Emmanuel Macron oo ah nin ku cusub siyaasadda ayaa soo jiitay kuwa ka niyad jabsan axsaabtii qadiimiga ahaa asaga oo taageero ka helay garabka midig iyo bidix Le président de tout le peuple de France waxaan doonayaa inaan u noqdo madaxweyne Faransiiska oo dhan madaxweynaha wadaniyiinta inkastoo ay jiraan kuwa xag jir ah balse codbixiyaasha axsaabta midig iyo bidix ayaa sidoo kale doortay musharax Marine Le Pen taa oo ku loolamaysa siyaasad walba oo ka soo horjeeda tan Emmanuel Macron ka bixitaanka Yurub joojinta muhaajiriinta iyo xadidida ganacsiga xorta ah waxa la gaaray waqtigii laga takhalusi lahaa dadka raba inay noo yeedhiyaan waxay rabaan dadweynaha ee Faransiiska Khamiistii waxaa dhacay weerarkii ugu dambeeyay weerar taxana ahaa taasoo xusuus u ah caqabadaha Faransiiska soo wajahaya dadka qaar ayaa sidaas darteed ku doodaya in tani ay astaan u tahay in loo baahan yahay khibrad oo aan loo baahnayn tijaabo marka maxay Faransiiska iskugu dayayaan inay u doortaan qof cusub xalay ayaa fagaaraha Bastille ee magaalada Paris dibadbaxayaal ka tirsan axsaabta midig ay fooda isdareen booliska ayaga oo ka carooday natiijadii ka soo baxday codeynta dibadbaxayaashaasi iyo guud ahaan dadka dalkaasi ku nool ayaa go'aanka ugu dambeeya gaari doona 2 toddobaad gudahood
minnesota waxa ay u tahay hoy soomaalida ugu badan ee qurbaha ku nool iyaga oo haddaba ka fog dalkoodii waxay doonayaan inay ilaashadaan dhaqankooda iyo hidahooda si ay ugu gudbiyaan jiilka cusub iyaga oo taa maskaxda ku haya ayay fureen madxafka keliya ee soomaaliyeed ee caalamka ku yaal si aan wax badan uga ogaano ayaan u safray magaalada minneapolis bulshada soomaalida ee minneapolis oo ka fog dalkoodii waxa ku adag inay sii hayaan xiriirkii dhaqanka hiddaha iyo taariikhda soomaalida laakiin hadda taasi way isbeddelaysaa madxafkii qaranka ee soomaaliya waxa uu saldhig u ahaa dhaqanka soomaalida waagii nabaddu ay ka jirtay soomaaliya intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ayaa la burburiyey madxafka qalabkii yaallay sida kuwan waa la bililqaystay maanta sawirradan waa kuwa keliya ee laga hayo madxafkii qaranka ee muqdisho cusmaan cali ayaa aasaasay madxafkan ujeedka ugu weyn aan leenahay madxafka waxa weeye waa labo midka koowaad waxa weeye in aan ubadkeennii ku dhashay halka ee ku kacaamay iyo dadka halka muddada dheer joogay dhaqankoodii dib aan ugu soo noolayno oo wax ka bartaan ujeeddada labaadna waxa weeye in aan dhisno communitiga soomaalida iyo kuwa kale aan la noolahay is-afgarad ka dhex dhalinno inta badan madxafyadu ma gurguuraan laakiin midkan soomaalida waa uu ka duwan yahay sababtoo ah waxay bannaanka keenaan oo ay bulshooyinka u soo bandhigaan noocyada kala duwan ee qalabka ay hayaan iyo ciyaaraha kala duwan iyo hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ciyaarahan hiddaha iyo dhaqanka oo lagu soo bandhigay munaasabad islaam nacaybka looga soo hor jeedo waxaa soo bandhigaya dhallinyaro qaarkood ku dhashay maraykanka qaarna halkan ku barbaareen waxay ku faanayaan inay u soo bandhigaan bulshooyinka kala duwan ee maraykanka ciyaarahooda hiddaha iyo dhaqanka waxaan jeclahay dhaqankayga iyo dhulkayga inaan soo saaro oon midnimada Soomaaliyeed dadka tuso waxaan rabaa inaan dhaqankayga xoojiyo oo aan loo oran bari baa waxa jiri jiray dad la yiraahdo Soomaali laakiin si loo yiraahdo waxa jira dad la yiraahdo Soomaali oo dhaqan iyo sumcad iyo magac iyo maamuus bale si kastaba haatee madxafkan waa goobta keliya ee bulshada Soomaaliyeed ay ku soo bandhigayaan dhaqankii iyo hiddihii ay uga soo tageen Afrika waxaana ay rajaynayaan in kuwa kale ee dalkii jooga ay ku dhiirigelinayso inay samaystaan madxafyo ilaaliya dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida bal markana ciyaarihii Barcelona ayaa sii kordhisay rajadeedii koobka La Liga markii si la yaab leh ay uga badiyeen Real Madrid oo 3-2 gool ay guusha ku raacday waxa uu dhaliyay goolka Lionel Messi goolkiisan dhashay daqiiqadihii dheeraadka ayaa ahaa noqonaya kii 500aad ee naadiga uu dhaliyo Barcelona ayaa hadda u sareysa horyaalka laakiin 5 ciyaar ayaa u hartay halka Real ay uga hartay 6 ciyaarood Kenya ayaa u dabaaldegaysa guusha labada ahayd ee shalay ay ka soo hoyeen orodka marathonka ee London Mary Kitani ayaa ku jabisay rikoorkii dunida ee dumarka 2 saacadood 17 daqiiqo iyo 1 ilbiriqsi taasi oo 41 ilbiriqsi ka yar tii gabadha Britishka ee Paula Radcliffe ay ku guuleystay 2005 Daniel Wanjiru ayaa isna guuleystay markii uu iska celiyay culays badan oo uga yimid Kenenisa Bekele oo Ethiopiana ugu dambeyntiina waxaan isdhahnay ku soo gabagabeeyay barnaamijkan ugu horeeyay ee telefishinka BBC Somali fariimo ka yimid dhageystayaasheena caalamka dalka iyo dibaddaba bal daawada sideed u aragtaan telefishinkeena cusub suuqa haddaad marto xama BBC maanta maxay sheegtay wax kale cid kale wax ku weydiinaysa markiis waxaan xasuustaa waalidiintay oo dhageysanaya reeriyoyadii yaryaraa oo gagaboobay oo idaacadda BBC ka dhageysanaya ayaan ku soo koray marka North Korea ma wax xigta xag maxaan ka salaamayaa BBC Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ida qayb television ay ka soo saaraysiin mabruuk qof kasta oo qofka u sheegi kartid oo sheeg fariimo la yaab leh daawadayaal waad mahadsantiin inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii caawa habeen wanaagsan